Jimca mubaarak daawadayaal waa nabad mar kale. Muuqaalkan kooban waxaan ku dul istaagi doonaa dhowr daraasadood oo soo baxay toddobaadkan iyo toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Daraasada koowaad waxa ay tilmaamaysaa ama ay ka hadlaysaa mas'uuliyadda iyo sidoo kale cabsida mararka qaar la soo gudboonaata dadka doonaya inay mas'uuliyadda qaadaan. Inkastoo ay waajib tahay inuu qof kasta mas'uuliyad qaado, caadiyanna uu qof kasta mas'uul ka yahay naftiisa iyo inta ku xeeran. Haddana waxaa dhacda mararka qaar inaynu ka cabsano go'aanada qaarkood. kuwaasi oo cabsidaasi haddii ay badato isku bedela cabsi uu qofku qabatimo sida dabiiciga ah qof kasta markuu go'aan gaadhayo waxaa ku dhaca warwar kaasi oo ka baqaya natiijada ka iman doonta iyo sidoo kale waxaa ka dhalan doona laakiin warwarkaasi haddii uu kordho waxa uu isku bedelaa cabsi xoogan taasi oo keenta qofku inuu ka fogaado inuu qaado mas'uuliyad sida qof markuu go'aan gaadhayo inuu guursado oo kale inta badan waxaa dhaca warwar xoogan taasi oo ku saabsan gabadha uu guursanaya ama ninka ay isguursanayaan nooca uu noqonayo ficilka hadhow ka iman doona inkastoo is yaqaanaan laakiin haddana hadhow siduu noqon doono waxaa isbedeli karaa gurigiisa qoyskooga ama qoyskeeda iyo waxyaala kaloo badan laakiin go'aanadaas ama warwarka go'aanka laga qabaa haddii uu kordho waxa uu isku bedelaa mararka qaar cabsi xoogan daraasadan waxaa soo saartay jaamacadda Memorial ee ku taala dalka Mareykanka waxaana daraasadu tilmaamaysaa in ay jiraan calaamado dhowr oo lagu garto qofka uu ku dhaco cudurka noocan oo kale ah ee loo yaqaano phobia responsibility ama cabsida mas'uuliyadda waxaa ka mid ah qofku inuu la kulmo ilaaluga joogto ah iyo sidoo kale inuu la kulmo mararka qaar matagaasi oo mararka qaar kordhaa oo ka badan inta ay ku aragno mararka qaar qofka ama ku oranayo wax noocaas ah sababay ama sabab uu sheegayo iyo sidoo kale dhidid aan dabiici ahayn oo kuleyl iyo qabow toona aan kala lahayn laakiin daawade haddii aad calaamadaha aragto qofka ha ku xukumin inuu yahay qof ka baqaya mas'uuliyadda laga yaabo inay xanuuno kale jiraan balse waxaa jira cilmi nafsiga marka lagu jiro in calaamadaha noocaas qofka lagu dareemi karo marka dhakhaatiirtu wareysanayaan qofka daraasaddu waxaa kaloo ay tilmaamaysaa in saameynta ama sababaha keena qofku inay noocani ku dhacaan ama uu mas'uuliyadda cabsida ka qaado ay ka mid yihiin dhibaato la kulmay isagoo yar ama sidoo kale shil uu galay isagoo aan gaadhin da'da qaangaadhka iyo waxa la midka ah balse arrinta la yaab kale waxay tahay daawada in daraasadu ay sheegayso qofku isagoo jira bil ilmaha yar ama 2 bilood ama wax la mid ah inay tani ku iman karto sidee haddaba daraasadu waxay tilmaamaysaa 2 bilood oo kale tusaale ahaan haddii uu ilmuhu jiro oo sida caadiga uu ilmuhu habeenkii ooyo laakiin dhaqanada qaarkood ay jiraan inaan ilmaha la koolkoolin oo laga mamnuuco inay hooyadii markasta hayso ama aabihii uu laabtiisa ama laabteeda ku jiro si aanu ilmahaasi u noqonin qof jilicsan sida iyagu aaminsan yihiin oo aan filaya dhaqankaasi inuu Soomaalida ka dhex jiray laakiin hadda aanan hubin inuu jiro laakiin laga yaabo inuu yaraaday hadda laakiin xilliyo dhexdaas uu jiri jiray oo la oran jiray ilmahan koolkoolinta ka daa ilaa hadda dad isticmaalay jiraan laakiin uu yaraaday waxay daraasadu sheegaysaa qof markuu ilmahaasi ooyo haddii la aamusin waayo oo la yiraahdo isagoo iska aamuso in maskaxdu ay fariin u dirayso qalbiga ay ku leedahay adiga cid ku danaynaysa ma jirto oo hintaada iyo farxadaada toona saas darteed uu qofku phobia ka qaado dadka ku xeeran iyo agagaarkooga cabsidaasina ay keento hadhow inay saameyn ku yeelato marka uu weynaado waxaa kaloo ka mid ah qofku in isagoo da'yar u shil galo oo aan qaangaadhin inuu la kulmo cadaadis nafsi iyo waxyaabo kale oo badan daraasada labaad waxay soo baxday maalinnimadii shalay tahayd ee khamiisteen soo dhaafnay waxaana ay tilmaamaysaa ama ay daraasadan xooga saaraysay maadaama wararka ugu badan ee warbaahinta ku aragna uu yahay xanuunka COVID-19 haddana uu soo baxay nooc cusub oo Omicron lagu magacaabo oo fayraskaasi ka mid in qofka qaata 2 talaalo kala duwan uu ka difaac badan yahay qofka qaata 1 talaalo isla mar ahaantaasina uu uga adkaysi badan yahay inuu la kulmo dhimasho ama inay neeftu ku dhegto ama inuu degdeg ugu baahdo in dhakhtar la geeyo daraasadu waxaa soo saartay guddida caafimaadka ee kulliyadda caafimaadka ee ka tirsan jaamacadda Harvard waxaana daraasadu tilmaamaysaa in qofka qaata tusaale ahaan talaalka Pfizer iyo sidoo kale Moderna uu uga adkaysi badan yahay qofka kale 1 talaalo ka mid ah qaata 20% isla mar ahaantaasina dhimashadiisu ka hooseyso marka laga yimaado sida dabiiciga ah ama qofka kale xanuunku ku dhacay laakiin mid walba waxa la socota daawade haddii ilaahay qadaray talaa haddaad qaatay haddaanad qaadan labada midna waa dhiman maysid haddii la qadarina dhimatana waa dhiman laakiin daraasadu waxay tilmaamaysaa in 2 talaalo kala duwan uu qofku qaato khaasatan muddada u dhaxaysa 9 cisho oo talaalkood markuu qaato ka labaadna 9 cisho kadib qaato inay xoojinayso in noocan cusub ee caalamka ku soo kordhay iyo fayraska laftigiisuba
uu yaraynayo ama dhimashadu ay yaraanayso. daraasadda ugu dambeysa waxay tilmaamaysaa oo soo baxday toddobaadkii aan soo dhaafnay ee maanta u dambeysay bartamihiisii in caruurta yaryari ay faa'iido u leeyihiin ayayooyinka. daraasaddu waxay sheegaysaa in caruurta yaryar ee ay gabadhu ayada u tahay ama awowga laftigiisaba ay faa'iido u leeyihiin ayayooyinka inta badan sababo la xidhiidha dabeecadaha ay dadka waaweyn la kulmaan, maadaama qof markuu weynaaday dabeecadiisu isbedeshay isla mar ahaantaasina uu la kulmo dabeecad xumo iyo sidoo kale inuu go-aano degdeg ah qaato mararka qaar iyo cadho joogto ah iyo inuu qof noqon neerfis aan waxba u dul qaadan karin. daraasaddu waxay tilmaamaysaa in qofku mar kasta oo ay gabadhu ayaydu leedahay caruur ay ayay u tahay ay yaraanayso dhibaatooyinka noocaas ama cadhada ama neerfiskaasi. taa beddelkeeda waxaa kaloo daraasaddu tilmaamaysaa in caruurta laftigooga ay faa'iido u tahay inay ayeeyo yeeshaan oo ayeeyada ay la kulmaan, maadaama oo ay ka faa'iidayaan khibrado nolosheedii hore ku saabsan iyo sidoo kale kalgacal dheeraada. waana halkay Soomaalidu oran jirtay aan filaya ayeeyo koris. daawadayaal waad mahadsantihiin. taas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. inta ayayooyinkoo dhinteen allah ha u naxariisto, intay nool yihiinna allah ha u cimri dheereeyo, caafimaadkana ha u siyaadiyo.